Hay'adda Saduura oo fadhigeedu yahay magaalada Kismaayo ayaa tababar u soo xirtay ku dhawaad 50 haween ah oo bartay xirfado isugu jira xirfadda harqaan-tolista iyo sidoo kale barashada luqadda afkeena hooyo ee Soomaaliga. Gabdhihii ka faa'iidaystay mashruucan oo la hadlay dalka TV ayaa sheegay in xirfadaha ay barteen ay uga faa'iideyn doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan, sidoo kalena ay u tahay shaqo abuur iyo xirfad ay ku shaqaystaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo ku bilaabaya magacayga Xamdi Mursal Axmed. Hay'addan Saduura 8 bilood waxay noo qabatay training. Maalinkan imaanaya runtii waxaan aqaani ma lahayn. Maasha Allah, haddana maradan hadda aan hayo anaa gacantayda ku kariyay. Dharka sida loo tolana waan bartay. Maasha Allah, hadda waxaan rabaa 8 bilood maadaama ay dhamaatay inaan mujtamacayga oo reer Jubbaland inaan kula laabto waxaan aqaan. Waxaan wax bari karana inaan sii baro kana sii faadaysto ilmahayga iyo dadkii igu dhadhowna mustaqbalkooda aan wax baro insha Allah. Magacayga waa Raaqi Maxamed Saalax oo kamid ah ardayda ka qalin jebisay hay'adda Saduura. Maasha Allah, aad ayaan ugu mahadcelinayaa macallimiinta iyo hay'adda garab qabatay. Maasha Allah, 8 bilood ayaan dhiganay maanta imaanay maanta laba ayay kala tahay. Maasha Allah, sayid ayaan u mahadcelinayaa bulshada aan u shaqaysan karaa hadii la waalidkayga. Maasha Allah, aad ayaan ugu mahadcelinayaa hay'adda Saduura wax badan ayay noo qabatay. Ugu dambeyntii madaxa hay'adda Saduura Cali Yuusuf Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah dufcadii labaad gabdhihii iyo haweenkii aan baraynay harqaanka iyo tuliinka dharka iyo naqshadeyntiisa qoraalka iyo akhrinta far-Soomaaliga iyo xisaabta maanta dufcadii labaad aan soo gabagabeynay gabdhahaas aan wax baraynay 8 bilood ayay wax baranayeen oo farsamada la barayay maanta waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii iyo in ma taqaanaa wixii ay wax ku bilaabi lahaayeen inaan siino marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha ay hay'adda Saduura qabato qayb ka mid ah waxa way waxyaabihii kala daryeelka caruurta iyo haweenka iyo arrimihii kala qabanaynay waxa kale oo jira hawlo kale waxbarideed oo gaar ahaan farsamada oo midna gabdhaha iyaga aan chance ku helin inay wax barasho helaan ayaa ma taqaana ayaan 200 baan ayaan wax baray sanadka horna konton baan sanadkana konton way dadka iyaga ah 90% kuwa wax qoro ama akhriyo ma aysan ahayn laakiin alxamdulillah maanta waxa weeye far-Soomaaliga way qorayaan xisaabta way garanayaan akhriyo fiiriyo hadda way ka baxeen alxamdulillah taasa wax weeyna oo midna de 100 gabdhood oo marka hore ama dumar oo marka hore waxba aan garanayn qoraal iyo waxba aan garan inay bartaan maanta ay wax qori karaan waxaan akhrin karaan waa wax weyn waay waxa ka kale u sii raaca wax baridii kale maanta waa kuwa gacantooda ku shaqaysan kara ciiday u baahan yihiin mala waxay wax ku bilaabi lahayn waan siinay barashadiina si fiican ayaa loo tababaray wax loo baray. Mustafa Abdullahi Maxamed dalka TV Kismaayo.